dadkii islaamka badbaadadiisa ehel u ahaa kulligood hooyooyin iyo guryo wanaagsan ayay ka soo baxeen oo ku soo tarbiyay inay islaamka naftooda iyo maalkooda u huraan. maxaa keenay hadda caruuraha suuqa galay ee dalalka ajnabiga u badan ama dadkeena u badan in la kari waayo oo ay ka inkaar badan yihiin kuwii wadankan ku dhashay gaalada ah? maxaa keenay liyawmin cadiimin yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin kaas wax khiyaanaya waxaa la yidhi ma oga miya inuu maalin jirta maalin weyn maalintaasi uu rabbi hor istaagayo. idan marka midana laga raba annaga had iyo goor inaan xasuusanaa waxay tahay liyawmin cadiimin maalintaasi yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ah ee bini aadamku rabbi uu hor istaagayo qof walbo annaga naga mida inuu jawaabteeda diyaariyo. dadkii islaamka badbaadadiisa ehel u ahaa kulligood hooyooyin iyo guryo wanaagsan ayay ka soo baxeen oo ku soo tarbiyay inay islaamka naftooda iyo maalkooda u huraan, inay Allah subhanahu wa ta'ala xaqqa cibaadatihi ay ka soo baxaan. ujeedada aan u soconno guri in la dhisaa, ujeedada loo socdaa in la helo famil wanaagsan oo saalixa maxay tahay? Allah subhanahu wa ta'ala wacdigiisa in la xaqiijiyo. sababtoo ah Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. jinka iyo insiga uma aan abuurin illa aniga inay adoon ii noqdaan, aniga inay caabudaan buu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. marka in la caabudo Ilaahay oo cubuudiyadaas iyo adoonnimada la xaqiijiyo waxaa lagu gaaraa wasaa'isheeda waxaa ka mid ah guri wanaagsan oo islaamiya in la dhiso. maxaa yeelay caruurtan haddaynan helin hooyo iyo aabbo wanaagsan oo guriga ku soo tarbiyeeyo islaamka iyo qiimaha uu leeyahay Allah rabbul caalamiin xaqa uu ku leeyahay, xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku leeyahay, risaaladan qiimaha ay leedahay, wadada jannada loo maraa hooyo u sheegtay hadduunan ilmaha helin waxaa meesha ku dhumayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqi annaga uu nagu lahaa. maxaa yeelay maanta waxaa laga yaabaa dad badan inay ku qanceen haba noqdaan dadka aan muslimiinta ahayn, laakiin muslimiintana cudurkaas uu soo gaaray inay guryihii la yiri qiimo badan ma laha, guri maba loo baahnaba. qof walba baahida haysa ee shahwada meeshuu doona ha isaga guto, ilmuhu banaanka ha isaga dhashaan, baby kotiye meelaha la iska geeyo. ilmahan muxuu u baahan yahay? dawladda xanaanayso oo noloshiisa dhanna wuu haystaa, dhar qurux badan iyo xayaatana wuu ku jiraa, hooyo aaba maxaa looga baahan yahay? laakiin waxaa la hilmaamay ujeedadii tarankan qiimaha badneed uu nabiga uu ka dardaarmay uu dhahayay war waxaad guursataan gabdhaha caruurta badan dhalo, waxaad guursataan gabdhaha maaragtay islaamka iyo diinta. ilan ujeedada laga leeyahay maxay tahay? gurigan in la dhiso caruurtan inay hooyo fiican helaan maxay tahay? in wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dad ku toosiyay ilmahan in la helo jiilkii wanaagsanaa jiil la mid ah inay soo baxaan. risaaladan waa qori isu dhiib. hooyo waxaa loo baahan yahay tawxiidka aabaheed iyo hooyadeed uu ku soo toosiyay ayadana ilmaheeda ku toosiye. arrinkaa waxaa lagu heli karaa marka inaan fahanno qiimaha guri in la dhisaa uu leeyahay. marka arrinkaas baan waxaan rabaa marka inaan uga gudbo qaybtii labaad oo ah maqaasida laga leeyahay ama islaamka uu ka leeyahay inay la dhisaa usra maxay tahay. marka koowaad waxay tahay waa in la taagaa labinadii ugu horeysay amaba dhagax dhigii ugu horeeyay ee mujtamac lagu istaajin lahaa. maxaa yeelay mujtamacu wuxuu ka istaagaa waxay tahay waa usra. keli kama istaaga mujtamaca, laakiin mujtamaca wuxuu ka bilowdaa waa guri la dhisay oo islaamiye. gurigaas guryihiiyo bato, guryo badan oo islaamiye oo batay ayaa mujtamaci uu ka samaysmaa. marka waa marka koowaad inay la helo usra waxay aasaas u tahay ama maqaasida weyn ee u tahay mujtamac in la helo. mujtamacana wuxuu ku dhismayaa waa gurigaas wanaagsan ee siirada fiican iyo aasaaska fiican loo dhisay. midda labaad waxay tahay in la xaqiijiyo baahida insaaninimada ee taalay in la xaqiijiyo oo ay ka mid tahay insaanku wuxuu iska jecel yahay adduunkan inuu joogo. insaanku baqaaga ayuu joogo maaragtay inuu wax badan adduunkan sii joogo ayuu jecel yahay, amaba asaga wax ku abtirsanaya inuu sii joogo ayuu jecel yahay. sida aan annaga xitaa dhaqan Soomaaliga aan ku leenahay in waalidiintu ay jecel yihiin guriga inuu ku soo darmo wiil oo wiilka maxay tahay macnaha abtirsiimihii ayaa soconaya oo durriyadu way sii soconaysaa.
marka saa darteed baa insaanka baqaagaas adduunka inuu sii jooga uu jecel yahay ayaa waxay ka mid tahay qayb inay loo helo marka usro in loo dhiso. usrada ayaa waxaa markaa kasii farcamayo inay la xaqiijiyo arrinka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa maalin u yimid markaas wuxuu ku yidhi rasuul allow waxaan rabaa gabar aada ii cajabisay oo qurux badan oo wanaagsan inaan guursado laakiin waa gabar aan waxba dhalin. marka rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ha guursanin. mar kaleu kusoo noqday ilaa mar saddexaad markuu kusoo noqda ayuu markii dambe wuxuu ku yidhi تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا وحد قرستان الولود مد الرجع إسجعليسين تبدن عرور تبدن ناليسو فإني مكاثر بكم الأمم. أنا وحن معرتين نقولنا كوا كأغتر هذا بدن مالنت يوم القيامة مرك إمادان. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka tusaalahan dambe ama tawjiihan markuu siiyey wuxuu u tusaaleynayay gabadha inuu guursado ujeedadeeda ma ahayn inuu u diidaye nabiga wuxuu u tilmaamayay ujeedada gurigan loo dhisayo ama usradan loo sameynayo inay tahay in meeshu taran ka imaado inaan nasligii uunan go-in oo tarankii uu soo sii socdo. nabiga calayhi salaatu wasalaamna ummadiisa ay noqoto ummadda yowm alqiyaama ugu badan. badnaashahaas marka inay si kale loo fahmo ma aha inay ummadda la iska badiyo ujeedada ma ahane waa ummad tayo leh oo waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku taagan in la badiyo. taana waxay ku imaan kartaa marka markii guri islaamiga la dhiso oo hooyadu ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku xiran tahay aabbihiina uu ku xiran yahay meesha waxaa ka dhalanaysa marka labadaas qofood inay guriga islaamiga ay ku toosiyaan ilaahay caabudaadiisa iyo waddada rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay raacaan. caruurtii marka guriga ka dhalataana inay ku hagaajinayaan maadaama ayagu ay yihiin dadkii maaragtay gacanta ku hayay waddadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo tarbiyada wanaagsan ee saxiixa inay ku toosinayaan. marka qaybtaasi waa qayb muhiim ah oo guryaha dhisidooda ka mid ah. waxaa ka mid ah guryaha in la dhisaa in jinsiga insaaniga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abuuray shahwadaasi qofka inuu meel uu ku gutaa loo helo oo weliba waddada uu ku gudanayaa inay noqoto waddo allah subxaanahu wa tacaala uu raalli uu ka yahay in loo helaa ayadana waxaa lagu gaari karaa waa inay guri la dhisaa. sababtoo ah waddadan hadda ay dadka aan islaamka ku jirin ama muslimiinta aan ahayn ay raaceen waddo saxiixa ma aha. waa waddo aan hadaayo wax yar ka tilmaana ay keeni karto fasahaadka ka dhashaa inay bulshaduba ay ku baaba'do oo tarankooda ma ahane xitaa dariiq aan saxiix ahayn ay ku bataan. maxaa yeelay haddaan ilmuhu uuna garanayn hooyadii dhashay ilmuhu uuna garanaynin gabadhii uu la dhashay walaashii waxaa suuragala duurkaas waxay ilmo ku tarmo inay laba walaalaaba inay isguursadaan. saa darteed shareecadu waxyaabo badan ayadoo ilaalinayso ayaa asalkan ilaahay qofka uu ku abuuray oo marnaba aanan suuragal ahayn inuu ka maarmo oo shahwadan ku abuuran basharkan ilaahay wuxuu u sameeyey meel qofka uu ku guto oo ay kasoo bilaabatay nebi aadam calayhi salaam ilaa yowmi alqiyaamana ay soconayso qofkii waddada saxa qaadana uu noqonaya mid ilaahay subxaanahu wa tacaala raali geliyo. marka midaana waxay ka mid tahay marka waxyaabaha ugu waaweyn ee guryaha loo dhiso inay la helo ummad aan fasahaadin. maxaa yeelay guri islaamiya ama beyt markii la dhiso ummadii dhan baa laga badbaadinaya oo fasahaadkii iyo zinadii iyo xumaatadii baa laga badbaadinaya. dhinac ummadii waxaa laga badbaadinayaa inay tarankeedii iyo maaragtay sii badashadeedii inay helo. dhinac waxaa laga badbaadinayaa ummaddu inay hesho suluukiyaadkii akhlaaqiyaadka. maxaa yeelay shaygan waa mas-uuliyad waay. qof walba mas-uuliyaddan way sugaysaa maalintuu qaado wuxuu noqonayaa marka qof bulshada inteedii kalena mas-uuliyad u qaadi karo. waxaa ka mid ah in guurka laga helayo ama guriga dhismihiisa laga helayo ijtimaaciya macnaa bayna alafraadi alusra inay ijtimaac guriga intaan bannaankaba loo bixin oo aan bulshadii wax lala wadaagin gurigaas dhismay caruurta ka dhalato hooyadii aabbaha iyo ilmihii ay wada dhaleen inay meesha ka abuurmayaan mujtamac weyn
oo suluukiyaad iyo akhlaaqiyaad badan oo hooyadu ilmihii tarbiyeynta ay toosinayso aabbihii hogaankii uu guriga u hayo wax isweydaarsiga ilmahan xuquuqda ay leeyihiin waxaasoo dhan waxay imaanaysaa inay hooyadii aabbaha ay u diyaar garoobaan ilmahan bulshada siday ugu xiri lahaayeen bulshada siday u gaarsiin lahaayeen ilmahan siday u noqon lahaayeen hogaanka mustaqbalka iyo inay noqdaan dad maaragtay lagu tashto mustaqbalka waxaa ka mid ah in guriga la dhisayo inay kasoo baxdo shakhsiyad wanaagsan oo shakhsiyada fiican dadkan aan arkayno maanta inay ummadda hogaamiyaan dadkan aan arkayno xataa taariikhda dib haddaan ugu laabano salaf al-umma hal qof ayaa laga yaabaa maaragtay ummaddaas inta uu u qabtay inayna 100 qofood oo ummadda ka mid ah inayna qabin guushaas iyo horumarkaas xaggay ka imaatay hooyo wanaagsan ayay ka imaatay guri la dhisay ayuu ka soo baxay wiilkaas ama gabadhaas maaragtay ummadda anfaca u noqday marka waa laga maarmaan shakhsiyadaas fiican iyo tarbiyada wanaagsan iyo horumarkaas wuxuu ka soo bilowdaa guri haddaan guri jirin waxaa la ogaaday xitaa qaab maadiya xitaa lagu ogaaday ilmaha hooyo iyo aabbo wada jooga ay soo tarbiyeeyeen oo guri ku soo barbaaray inuu ka shakhsiyad fiican yahay kana dadnimo fiican yahay ilmaha xanaanada iyo meelaha lagu xanaaneeyo dadka lacagaha qaata ay ku xanaaneeyaan inuu ka fiican yahay saa darteed marka guriga la dhisaa wax la heli karaa ma aha waxaa ka mid ah ayadana in guriga dhisidiisa in laga helayo ama maqaasida waaweyn ay ka mid tahay tacliimta saxiixa inay meesha bulshada uga soo bilaabato sababtoo ah bulshadan isu imaatay ama bulshadan wada nool ay jirto ama islaamiga ama aan ahaynba wuxuu tarbiyadooda ay ka soo bilaabanaysaa waa guriga markay islaami tahay oo midaan hadda aan maanta u taaganahay ay tahay tarbiyad akhlaaq wanaagsan oo islaamiya oo shareecada islaamka ku toosan oo hooyadu ay ilmaha ku tarbiyeynayso inuu ilaahay caabudo inta aan weli la geynin ilmihii madarasada islaamiga ilmihii intaan dugsiga la geynin ilmihii intaan masaajidka la geynin ay hooyada waqti u helayso ilmihii inay guriga ku soo barto inuu rabbul caalamiin yahay kii abuuray ilaahay inuu jiro koonkan iska leh ilaahay inuu jiro basharka oo dhan abuuray ilaahay inuu yahay midka caafimaadka siinayo midka maaragtay noloshiisa dhan u haayo midka wax walba adduunyadan asaga loo noqdo oo aan laga maarmin ilmihii marka inuu caqiido saliima uu ku soo barbaaro nabiga calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo maaragtay dariiqiisa ay ku soo barbaariso ilmihii oo marka muhayya oo diyaarsan oo xifdisan xitaa maaragtay asmaadii ilaahay subxaanahu watacaala oo xifdisan ilaahay subxaanahu watacaala magaciisa maxaa yeelay mararka qaar waxaa arkaysa oo aniga xitaa aan waaqican ku arkay yurub ilma aan ilaahay magaciisa aqoonin maxaa la dhihi karnaa marka hooyadaas ilmaha maxay gaarsiisay shayga ugu dhowaa waa shayga ugu horeeyo oo ilmahaada aad barto inaad barto allah magaca ilaahay inaad barto ay tahay waajib ilmaha allihii abuuray allihii adiga ku abuuray allaha aan wada caabudno in ilmaha la baro inta uunan weli u tegin masaajidka oon masaajidka loogu bilaabin tarbiyada islaamiga inuu noqdo marka masaajidka mid markaa ilmihii sii horumariyo laakiin tacliimta saxda ay kasoo bilaabanayso usrada marka usrada in la istaajiyo maqaasida ugu waaweyn waxaa ka mid ah in la helo guri dhisan gurigaasna ay kasoo bilaabato tacliinta bashariyada mideeda ugu weyn waxaa ka mid ah cimaaratu lardi macnaa in la camiro koonkan ilaahay subxaanahu watacaala isagoo koonkan abuuray basharkana uu abuuray ayaa haddana maqaasida waaweyn ay ka mid tahay basharkan ilaahay ilaa maalintuu doona ay sii jiri doonaan ay adduunkan joogi doonaan waxyaabaha koonka lagu camiro oo jiritaankooda kasii qayb qaadanaya inay ka mid tahay in la helo guri taranka uu ka socdo in la helo usra markaasi ka kooban aabbaha iyo hooyada iyo intii maaragtay ka farcanto waa lagama maarmaan
marka maqaasidan aan hadda soo tilmaanay ayaa waxay u baahan tahay inaan wax yar gunaanadkeedii aan dul istaagno oo weliba aan ku wajahayo waalidiinta sababtoo ah waxaa aada u cajiib badan oo wax lala yaabo ah in hooyada ama aabbaha muslimka ayagoo dareensan ahmiyadda guri in la dhisaa uu leeyahay ahmiyadda guri taagan oo dhisan in la sii hayo oo uunan dumin uu leeyahay baa haddana waxaad arkaysaa mararka qaar inay dhacdo inaan waalidku arrimahaasi uunan eegin oo weliba hadda markaan meelahan joogno nebiga calayhi salaatu wasalaamna uu leeyahay markuu guurka iyo maaragtay guryo in la dhisaa uu dhalinyarada oo ay kasoo bilaabato guurka dhisidiisa uu la hadlayay wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'a falyatazawaj war dhalinyarooy wiilal iyo gabdhaba qofkii awooda inuu guurka gaaro inuu guurka uu ka bixi karo arrinkaa ha u degdego oo ha sameeyo dhalinyaradii buu la hadlayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin cidda lala hadlayo oo hadalka uu u dhacayo waa hooyooyinkii iyo aabbayaasha sababtoo ah waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu makaniyey gurigan iyo usradan wanaagsan oo hadda aan soo tilmaannay waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu mas-uuliyadda gacanta u geliyey sidii ay ugu tawjiihin lahaayeen usradan dhismatay duriyadan ka soo baxday inay noqoto duriyadii mustaqbalka ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa ku tooso oo ummadda hogaamiyo laakiin waxaa maca alasaf ah oo waxa runtii aada lisu weydiiyey ah in maanta ay dhacayso guurkii oo gabdhihii ay gaareen wiilashu ay gaareen laakiin hooyooyin badan iyo aabbayaal badan aynan weli diyaar u ahayn amaba xitaa dhalinyarada qaarkood aynan diyaar u ahayn ayadoo marmarsiyo badan laga dhiganayo inay maaragtay waqti badan la haysto amaba hooyadu ay jeceshahay gabadhu inay jaamacado ka baxdo ama wiilkeedu ay jeceshahay inuu maaragtay aqoon badan adduunka u yeesho ama uu shaqaysto ama uu wax qabsado laakiin xaqiiqda waxaad ogaataan nabiga calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaah ayaa nooga aqoon badan basharkeennan iyo ummaddan waxa maslaxadeeda aakhiradeeda iyo adduunyadeeda ugu jirto maxaa yeelay nebiga markuu kula talinayo dhalinyarada war qofkii dhalinyarooy ee awooda inuu guursado ee kartideeda leh ha sameeya arrinka ayuuna dib u dhigin marka hooyada iyo aabbaha waa inay u degdegaan haddayba ogaadaan wiilka iyo gabadha inay arrinkaa diyaar u yihiin amaba ay gaareen ay u bislaadeen in lagu kaalmeeyo xitaa hadduunan awoodin dhinac dhaqaale hooyadii aabbaha inay u istaagaan arrinkaa laba shay baa looga badbaadaya oo dhibaataha oo haddaan la samaynin dhibkeeda oo imaanayo midda koowaad waxay tahay fasaadka iyo dhibaatooyinka bulshada ku imaan lahaa oo la xiro oo la xanibo taana ajirkeeda waalidka uu xisaabsanayo adoo ilmahaada wax u sameeyey baa haddana maalinta yowmalqiyaama ilaahay kugu abaalmarinayaa bulshadan wanaagga aad u qabatay oo aad ka badbaadisay xumaatada iyo dhibaatada ay leedahay tan labaad waxay tahay waaqica aan ku noolnahay iyo bulshadan hadda aan la noolnahay iyo qarbigan aan joogno fitanka yaallo waalidka inuu ku baraarugsanaado ayaa la doonayaa taa darteed ayadoo fitanka taallo ay tahay mid aada u adag in laga baxsado hadduu waalidka haddana waxyaabaha ku kaalmeynayo fitanka inay sii bataan uunan maaragtay u istaagin ayadana waxay noqonaysaa waaqaco ama guuldarro waalidka uu ku dhaco laakiin hadduu waalidka guurka u sameeyo ama ilmihiisa uu kula dardaarmo ama ilmihiisa uu ku garab istaago uu gaarayo ilaahay subxaana wa tacaala inuu makaniyo adduun iyo aakhiraba inuu badbaado uu gaarayo inuu noqdo dadka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa qiimaha ku leh sababtoo ah ilaahay agtiisa waxaa qiimo looga yeeshaa wixii ilaahay dartii loo sameeyey inama alacmaalu binniyaat hooyadu iyo aabbaha hadday u istaagaan sidii qoys islaamiya loo dhisi lahaa iyo sidii qoys islaama oo dhisan loo adkeen lahaa inuuna dumin ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu jecel yahay uu soo dhoweeyo oo qofkaasi agtiisa karaamo ku yeesho ayay ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan ayadana aan uga gudbo maraaxilul usrada maraaxisha ay marto ama qaybaha ay ka kooban tahay inaan ayadana aan wax yar aan dul istaagno maxaa yeelay marxaladan haddaan ayadana aan wax ka ogaano waxaan helaynaa in qofku uu ku baraarugo
islaamka meesha uu ka taagan yahay iyo faa'iidada uu leeyahay guri islaama inay la taago. 3 qaybood ayaan u qaybin karnaa. qaybta koowaad waxay tahay usradu inay ka kooban tahay zawj iyo zawja, macnaha ninkii iyo gabadhiisii inay ka kooban tahay. ilaahayna uu leeyahay wayaa aadamu uskun anta wa zawjuka aljanna. aayadaas ilaahay uu ku tilmaamayo aadamow maaragtay jannadan ku noolow adiga iyo xaaskaadaba. macnaha maxay tahay in usradu ay ka bilaabato ninkii iyo naagtiisii, macnaha gabadhii iyo wiilkii inay ka bilaabanayso oo ay u gudbayso qaybtii labaad oo ayaduna ah in dhurriyadii iyo wixii labada ka farcamo, iyo qaybta saddexaad oo waliba dhurriyada ilaahay markuu ka hadlay ilaahay wuxuu leeyahay walaqad arsalnaa rusulan min qablika waja'alnaa lahum azwaajan wa dhurriya. aayadda hore aan usoo tilmaanay oo ilaahay uu tilmaamayo dhurriya inay maaragtay meesha ay ka farcamayso oo nebi walba iyo rasul walba oo adduunkaa soo marayna ilaahay uu u guurin jiray oo maaragtay guur ay ahaayeen kuwa sunnadooda ay tahay. qaybta saddexaad oo ayaduna ah in meesha taranka dhasho ay qaraabanimo ay meesha ka dhalanayso oo aayadda ilaahay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. ilaahay uu leeyahay wardad yahow ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada, allihii idin abuura ee khaaliqa ka dhowrsada oo naftiinna ilaahay cadaabkiisa uga dhowrsada. quu anfusakum oo naftaada inaad ka bilowdo oo maxay tahay arrinkan guurka haddii wiilka uu u istaago ama gabadhu ay u istaagto ama hooyadii aabbaha ay u istaagaan, awalan ilaahay cabsida uu ku lahaa ayay qayb ka tahay oo ilaahay bay ugu dhowaanayaan inay wax badan oo ilaahay macaasidiisa ama dunuubtiisa oo imaan lahayd inay arrinkaa ku damiyaan. wa ahliikum iyo ehelkiina uu ilaahay tilmaamayo subxaanahu wa tacaala inuu qofkaana uu naar ilaahay uga cabsado ehelkiisa oo maxay tahay marna waa gurigii dhisnaa inay la badbaadiyo oo shareecadii dariiqii ilaahay lagu toosiyo, marna wuxuu noqonayaa in aad dhurriyadii iyo maaragtay beydka wixii ka farcamay oo aqaarib iyo ciddii kugu xiran oo dhan oo ehelkaada ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa aada ugu yeerto oo usradan sidii loo dhisi lahaa ama loo badbaadin lahaa. bal arrinkan waxaa laga yaabaa ayaamahan aad baa loo fudaydsadayoo oo weliba meelahan markii la joogo in la yiri gabadhuna iskeed ama wiilkuba iskiisa waxa isaga raadsado oo hooyadii aabbaha aynan baxil iska saarin. laakiin waxaa xaqiiq ah waalidkii u istaago oo qalbigiisa geliyaa gurigan u dhisan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa ku xiro, gurigan u dhisan iyo dhurriyadan ee carruurtan ilaahay ku irsaaqay oo ah runtii wax aan la fudaydsan karin oo maanta ay gaartay xitaa waalidiinta qaar inay iska shaqaystaan ay wax iska bartaan oo carruurtoodii ay ku sallimeen meelaha carruurta lagu xanaaneeyo, ay carruurtoodii ku sallimeen bashar kale inuu badbaadiyo ama uu maaragtay xanaaneeyo. waana arrin runtii aanan ahayn thawaab. hooyadu way shaqaysan kartaa, hooyadu waxbay baran kartaa, laakiin waa inay kaa go-an tahay ilmahaada sida aad ku badbaadin lahayd, sida aad wadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ugu toosin lahayd, sida aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddiisii u xaqiijin lahayd oo aan hadday soo tilmaano wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. hooyadu inay u istaagto marka arrinkaa wuxuu kugu xambaarayaa marka qalbigaada uu ku wen yahay ilaahay in la caabudo, waxaad dhashana inuu ilaahay caabudo, shaqadii ma kuu dhadhamayso. hadday isqabato shaqada iyo ilmahaada inay maanta kaa dhumayaan, shaqada waa ka tegaysaa, ilmahaadaad badbaadinaysaa. hadday isqabato waxbarashada iyo ilmahaada inay dhumayaan, ilmahaada ayaad dooranaysaa. marka xikam baa loo baahan yahay oo waalidiintu inay xamlo qaadaan, inay u istaago. wax ceeba ma aha, maanta ceeb baa laga dhigay hooyadii aabbaha u istaago inay bulshadan sidii loo tarmin lahaa, sidii guurka looga shaqayn lahaa u istaago. waxaa laga yaabaa in la isku ceebeeyo, laakiin waxaad ogaataa ilaahay oo agtiisa aad qiimo ku yeelataa, basharka agtiisana lagugu xantaa inay kuu qiimo badan tahay. laakiin basharka dhexdiisa oo aad qiimo ku yeelataa oo 4 maalmood soconayso, allah agtiisana aadan qiimo ku yeelanin. maxaa yeelay allah waxaa qiimo looga yeesha agtiisa asaga oo shaqooyinka uu basharka u dira la qabto. shaqooyinka ugu waaweyn oo alla dadka u dirana waxay tahay waa cibaado. guurkoo laga shaqeeyaa waa cibaado. maaragtay shareecadan oo la difaaca oo loo istaagaana waa cibaado. difaaca shareecadan lagu difaacana waxyaabaha ka mid ah waxay tahay waa
usro islaamiya oo la dhiso oo la istaajiyo. marka ahdaaftan iyo maqaasidan aan soo tilmaanay kulligood waxay isugu soo biyashubanayaan inaan gaarno qaayada inay ilaahay la caabudo subxaanahu wa tacaala. sababtoo ah gurigaas islaamiga ee la istaajiyey hooyada iyo aabbaha ilaahay awood wuxuu u siiyey. weliba mowduucyada ku xiga mowduucan ayaa aada u taabanaya oo ah sidee guri islaamiga loo istaajiyaa. guri islaamiga markii la istaajinaya tusaalooyinka ugu horeeya ee la qaadaya maxaa ka mid ayaa waxaa hoos imaanaya marka hooyadii saalixada iyo aabbihii saalixa inay u istaagayaan inay xaqiijiyaan mabda'i loo abuuray, inay xaqiijiyaan durriyadii ilaahay siiyo mabda'i ilaahay subxaana wa tacaala bashariyadan u abuuray oo allah subxaana wa tacaala gurigaas in lagu caabudo. kadibna caabudaadaas iyo cibaadadaas iyo akhlaaqdaas wanaagsan ee gurigaas ka bilaabatay inay bulshada usoo baxdo. guryo badan oo sidaas saalixiin u wada oo ilaahay lagu wada caabudo ayaa marka waxay wada noqonayaan usradii mujtamacan laydiin sheegaya ama mujtamacan mar walba luqada lagu bayaaninaya leeyahay mujtamacu wuxuu ka kooban yahay waa famille isu tegay, waa guryo isu tegay. haddaan guryaheenna oo dhan aan wada wanaajino, haddaan guryaheenna oo dhan aan ka shaqayno inta dhisanna inay taagnaadaan, inta maaragtay aan weli la dhisinna in laga shaqeeyo, waxaan gaaraynaa ilaahay subxaana wa tacaala raxmadiisa inay nagu soo dul degto oo adduunkaana nalagu xifdiyo, aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala jannaadkiisa aan helno. maxaa yeelay dadku waxyaabaha aynan aada xoogga u saarin oo aynan fiirinin waxaa ka mid qofka inuu asagu uu daaci noqon karo. nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu sheegay inuu umma ahaa, macnaha keligiis inuu ummad ahaa. sababtoo ah waxaa lagu tafsiiriyaa oo maaragtay lagu tilmaamaa in ummadnimadaas uu ku gaaray nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam inuu keligii waxay ummad dhan u istaagi lahayd inuu u istaago oo ugu horeeya tawxiidka ilaahay. hooyada marka hadday u istaagto inaynan cid kale wax ka sugin ay ayadu dhaxda u xirato ilmaheeda inuu ilaahay caabudo, ilmaheeda inay maaragtay allah subxaana wa tacaala ku xirto, gurigaasna wuu badbaadaya. waad garanaysaa suuratulkahfi ilaahay markuu tilmaamayo wa kaana abuuhumaa saalixa. aayaddaa bal tafsiirkeeda u noqdo. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa culamaau tafsiirna markay aayadda tafsiirayaan waxay leeyihiin macnaha awowayaal ilaa dhowr awowa ayaa la gaarsiiyey, 4-5 baa la gaarsiiyey qaarkood, inay macnaha aabbayaasha la sheegayaa ee ilmahan kansigaas meesha ugu jira loogu badbaadinayaa inay ahaayeen awowayaal qarniyo ka hor dhintay. laakiin muxuu ilaahay ku badbaadinayaa oo ilmahan ku xifdiyey liajli awowayaashood inay saalixiin ahaayeen. marka hooyada hadday ixtisaab samayso oo ay u istaagto inay gurigan islaamiga ay hadda ku jirtana ay dhaxda u xirato, wax walba u culaysahayo ay allah ugu sabarto, guri cusub dhisidiisana ay ku dadaasho, waxaa qofka uu gaarayaa in xitaa haddaadan adu haleelin nimcadan iyo khayrkan aad ka shaqaysay inay gadaasha ilaahay xifdinayo durriyadaada, bal kuwa macnaha abka adiga gadaasha ilmahaada ay dhali doonaan inay noqonayaan kuwa ilaahay jidkiisa ilaahay baa ku kafaalo qaadayo. taana waxaa lagu gaaraa niyadda wanaagsan iyo camal, niyadda wanaagsan iyo camal ayaa lagu gaaraa. sababtoo ah caruurtan waa mas-uuliyad weyn annaga dusheena saaran, mas-uuliyad weyn ee annaga dusheena saaran weeyaan caruurtan. nabigana uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra. ma jiro ilmo la dhalo ilaa ilmahaasi waxa ay ku dhashaan fitra. fitradii hadda aan tilmaanay fitra islaamiya ayay ku dhashaan caruurta. laakiin wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa abawaahu aabbayaashii hooyada iyo aabbaha yuhawidaanuhu inay maaragtay ay yahuudiye ka dhigaan, oo hadday yahuud yihiin inay yahuudiye ka dhigaan, aw yunasiraana ama maaragtay nasraaniye ay ka dhigaan hadday kirishtaan yihiin, aw yumajisaani amaba maaragtay hadday dabcaabud yihiin inay majuus ay ka dhigayaan. marka waxaa asal hooyadii aabbaha mas-uuliyaddan inay u istaagaan, hooyadii aabbaha inay ogaadaan xilkan saaran oo allah subxaana wa tacaala aan uga wada cabsanno. hadalka gunaanadkiisa iyo maaragtay mirihiisa wuxuu noqonayaa
أسرة إسلامية قري إسلامية إن لتاجا مهمة وشيء أنت كذا وين وشيء وين الله سبحانه وتعالى أنا ويني آيات عن صوت المعنينا إلهي أكوبا بيانية وحان نفتي ذي يتين بأن أقدر دارميا إلهي سبحانه وتعالى إن إلهي أعبسنا dariiqada iyo wadada aan ku wada soconno iyo waxa aan u wada hadlayno ama aan ilaahay isu xasuusinayno kulligeen waxay tahay inaan ilaahay wada raali gelino oo aan xaqiijino wixii naloo abuuray oo ah Allah subhanahu wa ta'ala inaan adoon u noqono adoonnimadaas marka waa shaqo ballaaran oo dadku u wada taalo qof walbaana meel buu u istaagayaa maanta waxaan dul taaganahay bayt islaam in la dhiso qofka hadduu marka ama hooyadii aabbaha hadday u istaagaan guri islaamiya sidii loo istaajin lahaa hadduu istaagan yahayna sidii loo xifdin lahaa oo looga ilaalin lahaa wixii gurigaas uu ku dumeeyo xanuun kasta iyo cillad kasta oo imaato sidii loo xallin lahaa waxaa la gaarayaa in qofka uu qayb ka xaqiijiyo cibaadadii asaga Allah uu ku lahaa subhanahu wa ta'ala qaybihii kalena uu gaarayo waxaa ayadana muhiima inaan isxasuusino waxyaabaha usradan islaamiga dhisideeda qofka uu ku gaarayo ama uu ku helayo ay kamid tahay in qofkani aakhiro inuu u shaqaysto maxaa yeelay aakhiro shaqadeedu runtii waa shaqo weyn oo ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wardadow shaqaysta oo waxaad maarata sahay u qaadataan maalinta yawm alqiyaama wardadow sahay soo qaata sahay mid la qaataana ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala waxa ugu weyn cabsida ilaahay sahaydu marka fiiriso luqa ahaan waa qofka asagoo safar ku socdo safarkiisaas inuu sahay u sii qaato safar marka la aado waan garanaynaa maanta haddaan turku aadayna ama magaalo meesha ugu dhow haddaan aadayno qofku inuu si weyn isu diyaarinayo oo kaararkeena bangiga iyo wax badan qofku uu iska eegayo meesha uu socdo dadka uu sii wacayo laakiin safar midka la aado waxa ugu weyn midka yawm alqiyaama asagaana ugu dheer oo safarkan hadda aan isku diyaarinayno mid ka sii qiimo badan baa na sugayo qofka inuu isku diyaariyo safarkaas oo safarkaana maal badan iyo dhaqaale badan iyo technology iyo aqoonta adduunyada uma baahne wuxuu u baahan yahay cabsi ilaahay adduunkan oo inta aad joogta ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ka dhowrsato manhajkaadu saxiix ku noqdo wadada saxiixa aad qaado oo qalbigaada masaa'idka iyo diinta ilaahay oo ku xirnaado nabigana uu gaarsiiyay maaragtay qalbiga qofka qalbigiisa uu masaa'idka ku xiran yahay oo hooyada qalbigeeda masaa'idka uu ku xiran yahay qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta ilaahay inay kor noqoto uu ku xiran yahay wax fudud ma aha oo watuu ahaa xadiiskii todobada qofood ee maalinta yawm alqiyaama harka ilaahay harsanayso inay kamid tahay macnaha qof qalbigiisa uu ku xiran yahay masaa'idka qof qalbigiisa uu masaa'idka uu ku xiran yahay inay kamid tahay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa kelimadeydan hal xadiis oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay xadiiskaas macnihiisa ama ujeedadiisa waxay tahay waa xadiis qofka ku boorinayo inuu isu diyaariyo maalinta yawm alqiyaamo iyo camal saalixa hadda inuu shaqaysto waa xadiis abi hurayra uu warinayo radiyallahu anhu uu soo saarayo maaragtay tirmidhi iyo tabarani sheekh albanina uu xasaniyey nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ما رأيت مثل النار نام هاربها ما أن أركن وحنار لمدئه أو قفك كعررين أوجيفه ولا مثل الجنة نام طالبها إيو وح جنة لمدئه أو قفك دلبني جنة داسنا أوسحذي وحديث رنتي قفك الدارين كوكعني وحديث آد وعجيب بدن نبي وكتل المامي عليه الصلاة والسلام قف هداد أركتان كورما نار ليري حقا با لا قدر الله إلهي نقول ما كان ماشان با ما أنت لنعم با دب كدعي كورنتا قرح الدبا ماشان كسب بحي من لقيا با كل جين أنا إذن كوه الريو ماشان أدو إن نفرديو إرادو ور إذن كو كعريو دب كان إذن جوبين سورة قلمها أنا لقيا إن كل جين إذن كهر مرة وطاقة كبر تابو مركن النبي عليه الصلاة والسلام وحليه نار بان إذن كجشيكي
aakhiro waxaa idinka horeeya oo idinku sugaya idinkaga sheekeeya cadaabka ilaahay mid ilaahay aliim oo dadka guba ayaa idinka dambeeyo laakiin dadkan uga sheekeynay dadkii looga digaya ee naarta ka cararayay oo dhahayo war anigu naar inaa is aragna ma rabo maalin walba ilaahay ka tuugay ilaahay oo janno igey oo haddana naartaas shaqadii loo rabay inuu kaga badbaado ka jiiftay waa arrinkan oo kale usradan aan hadda u fadhino qofkii usradiisa inuu badbaadiyo rabo qofkii usra islaama inuu istaajiyo rabo waa inuu u shaqeeyaa oo camal sameeyaa hurdo kuma imaato iyo jannada aan dalbanayno ayaduna waa camal saalixa in laga shaqeeyo camal saalix oo laga shaqeeyo ayadana waxaa ka mid ah usra islaamiya in loo shaqeeyo oo maaragtay la isku dabarido marka waxaan walaalayaal hooyooyinka iyo gabdhaha sharafta leh ee maanta meeshaan isugu imaaday waxaan naftayda iyo tiinaba u dardaarmaya ilaahay cabsidiisa iyo inaan ka shaqeyno guurka iyo guri islaamiya sidaan u dhis lahayn hadduu asagu noo imaadana oo guurkii gacmaheenna maaragtay gurigeenna albaabka uu soo garaacana inaan soo dhoweyno oo aanan dhinacyada la fiirinin oo magacyo la isku bixinin oo ilaahay looga cabsado qofkii guri dhismi lahaa gacantiisa ku istaajiya oga waa dambiyada ugu waaweyn ayay ka mid tahay usra islaamiya dhan oo la istaajin lahaa qofkii istaajiya oo maaragtay dumiya amaba ka hortaga waa arrin weyn marka insha allah intaas ayaan kelimadeyda kusoo koobayaa wabillahi tawfiiq sala allahu calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin